الله حوجا دحن iyo maarta qarqariyo aysan jirin waqtiga uu diiran yahay waxna loo jeedo ayaa nolosha la macaasho kara marka habeenkii waxba saas loo macaasho karo naam waja'alna an-nahara maalintii miyana ka dhigin macaashan waqti maanta ma arkaysa nolosha la raadsado yaani maalin ifayso oo nuur laho si qofku ay ugu suura gasho inuu noloshiisa uu la dagaalamo si socdo soo socdo wixiisa oo maamusho وبنينا ميانا لسن فوقكم كركينا 7 تضوسم او شدادا ادغو حوق بدن او ضعف يمنا ان لهين حوق له وميل دلشي ميل قلعن ان لهين واسمدان او كوريس وجعلنا ميانا يلين دحديدا سراجا فينوس وهاجا او افيسو كليل اي افسير وهاج وحال يرادا شيء حراره له افتين كنانه sababta qorraxda ogtiin xaraaradeeda waa loo baahan yahay kuleylkeeda oo jirka lafaha ku koro waa ogtihiin hadda dadka aan qorraxda arkin inay lafooda ay cilin ay noqdaan nabaadkiiba maanta ma arkaysa ku koro oo qorraxda la'aanteeda aan korin iftiinkeedana waa loo baahan yahay marka hadda qorraxdi waa wahaajo iftiinna way leedahay xaraarana way leedahay sababta hadaysan iftiin lahayna wax looma jeedo hadaysan xaraaran lahayna noloshii ma suurtaabayso bini aadamku waxa uu ku koraa oo ku bislaana oo maartay yaani ku koray qorraxda kamid nabaadkii waxa isku korayaan beerihii bay ku baxayaan hadii qorrax aan la helin waxa way maartay ma baxaya wa anzalna miyana sudjin min al mu'sirat daruraha ee marka la majuujiyo dabaysho ay majuujiso dabaysh daruurtii oo marka roob ay ka buuxdo oo biyo intay kor u kacaan ay daruurtii marka ay sameeysanto biyo ay ka buuxdo markaas Ilaahay wuxuu ku soo dirayaa dabaylkaas marka sidii maartay hasha geela loo salaaxay intay u salaaxdo ayay godlanaysaa markaas biyaha ka soo daadinaysaa mar waa qudra Allah subhanahu wa ta'ala wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna min as-samaa'i ma'an fa asqaytum waxaan soo dirnay dabaysha mid wax salaaxda oo talqiixisa bacrimis inay tahay markay daruurtii ay bacrimiso oo gudliso ay marka biyo ka soo daadin wa anzalna waxaanu ka soo dejinay min al-mu'sirat daruuraha la ta'sir asirka waa taqaana marka liimada iyo waxyaalaha la majuujino saa asirka looga soo baaro ma garat ayaa la yiraahdaa ama inta maartay yaani biyaha markay ka buuxaan oo marka ta'sirka ay diyaar u tahay sida gabdhaha waxay dhahaan imra'atun asr wax saasayda markay gabadhu ay caadadu ku soo dhowdahay wali aysan caadii keen ee marka wax yar u baahanta marka inay ka timaado yaani waxa marka ay buuxaan oo diyaar yihiin inay maartay ay wixii soo daadiyaan way ma an biyo thajjajan oo shubmay ma garad biyo marka waa maxay intifaacoodi maxaan u soo dejinay marka biyaha linukhrij bihi inaanu ku soo bixino حبا وحيالها حبوبتا او سيده مسغده بدركا كليده iyo maartay sareenka waxyaalaha xububta oo quud ahaan loo cuno ee maartay cunada muhiimka ah ma garad loo cuno ayaan ku soo bixinaa luqrija bi inaan ku soo bixino xabad macna waa loola jeeda xububta macna ama rootiga laga sameeyo ama la karsado ama bariiska ama sareenka oo qofka quudka rasmiga ah oo carbohydrates kale kaas looga jeeda iyo nabaadkana waxa weey waa wixii xoolaha ay cunaan ama waxyaalahan maanta maarta buquusha iyo khadrawaadka ay dadku ay cunaan waa la yiraahdaa iyo wajannaatin beero alfaafan oo ayaga maanta ma arkaysa isku marbay beero geedahooda ay waa weyn yahay ee ayaga dhanba maanta ma arkaysa isku darmay oo aad iyo maartay isku darmo lugaha iska shaday madaxa iska shaday inaanu soo dejino naam يعني geeda ayaga dhan saa isugu marmay alfaafan ay mujtamacata intaasoo dhan marka maxay ku tusinayaan awalan waxay ku tusinayaan qudrada Allah subhanahu wa ta'ala waxaas ilaa qudradiisa ku sameeyay bini aadamkuna wuxuu sameyn karo ma aha marka Allah waxa asoo qudradiisa ku sameeyay
ayaa awood u leh dadka inuu soo bixiyo cibaadana asagaa maanta ma arkaysaa mudan in la caabudo tan kale waxaan oo dhan Alle uu sameeyay adinkay manaaficaad idin tahay oo bini aadamku saa ku nacfinahay marka bini aadamku waxay ka tadallubaysaa marka oo ku qasbaysaa ay ku keenaysaa inuu manaaficaadka inuu ilaahay uu ku shukriyo subxaanahu wa ta'ala oo ku aqoonsade isagoo nicmada ilaahay dhuuqay inuu san kufrinin haddii kale marka haddii uu qofku kufriyo wa inna cadaabi la shadiid la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabi la shadiid marka waxyaalahaas haddii dhinaca qudrada laga fiiriyana allaha maarta sameeyay inuu dadka soo bixiyo waa awooda isaga in la caabudo xaq u leh haddii xagga nicmada laga fiiriyo allahaas astaahilo in lagu shukriyo oo maanta ma arkaysa la caabudo marka dhinac walbaba dadka xujay uga tahay haddaba soo ma muuqato marka iyadoo aayaadkii alle iska cad yihiin inay gaalada ay xaq ku murmayaan oo waxdaanadii alle iyo qiyaamihii iyo quraanka ku murmayaan soo ma marka waxa leeyahay hadaad ku murantaan kulle waxaa jirta maalin dadka la kala bixiyo yoomul fasl la yiraahdo oo ninkii alla rumaysnaa aayaadkiisa ku waansamay iyo ninkii kala la kala bixinayo oo qol walba meeshii astaahasho la geynayo maalintaas jirto inna yawmal fasl maalinta dadka la kala bixinayo kaana wuxuu ahaaday miiqaatan waqti la isku qabtay oo ajal go'an leh oo maartay aan dibna u dhacin horena u soo marin waa waqti la isku qabto jilajaankuyo qof ka maqnaana ma laha Soomaalida ku yiraahdaan dhee ka maqli jirnay ay dhalwaaninkii aakhira laga way macna aakhira ninka maqnaan kar ma laha marka waa mawcid la isku qabtay dadka dhan la balamiyay ninka maqnaan kar ma laha maalintaas dadka waa la kala bixina mu'min iyo munaafiq iyo kaafir way kala baxay nin walba waxa way meesha u munaasabo aadi hadda adduunka waa la isku dhex jira laakiin maalinta la isku dhex jira inna yawmal fasl maalinta dadka la kala bixinayo kaana wuxuu ahaaday miiqaatan waqti la isku qabtay oo la isbalamiyay oo waqtigana qof ka dib dhacay iyo qof ka soo ta'akhuray aysan jirin yooma dharaar waay maalintaas yunfakhu la afuufayo fi suuri boonka la afuufayo oo fata'tuuna aad imaanaysaan afwaajan adinkoo koox nafkhadu waxa weeye sida axaadiista ay jirto quraankan aysan laba nafkho iyo sacqi wax la yiraahdo jira nafkhada waxa wakiilka malaga la yiraahdo israafiil sida nabiga sheegay calayhi salaatu salaam boonka afka ku haayo saas afka u haayo ishiisana koray jirta wuxuuna sugayaa waqtiga loo idmi lahaa si oo markaas oo boonku afuufo nafkhada hore markuu afuufo adduunka waxa joogo dhana dhimanay ilaa wixii ilaahay uu ka haysatay maaha wal dhimanay nafkhada labaad ayuu afuufaya dadkii dhamaaya marka soo wada noolaanay fagax la leeyahay soma markii oo dadku soo wada noolaadaan oo alla oo yimaado fasl qadaa alla la arko ayaa dadka dhamaa suuxaya suuxitaankaas haddana laga soo kacaya wax soo baraarugana nabiga u horeeyo markaas faida ana bi Muusa magaratay maasikun biqaa'imatin qawaa'im al-arsh arshiga maaratay tiirkiisa uga haysan arkaya marka nafkhada hadda la sheega waa mid dambe waa dad ku soo baxeen mid hor waa lagu dhimanaya tan dambana dadka ku soo baxay yooma dharaar way yunfakhu la afuufi doono fi suurka la afuufi doono boonka oo fata'tuuna aad imaanaysaan afwaajan adinkoo koox aad imaanaysaan oo qolo walba isku camala waa isla imaanaya inta mu'miniinta intii isku camala waa si u kala darajaad sareeyay gaalada iyo fusaaqa si isugu nooceeyeen zunaadi maartay saariqiintii lusuustii isay isku kala dambi badiyeen isku noociin ayaa loo kala soo bixinaya وفتحت السماء مركز مدينة والله فري فكانت وحين نقطي أبوابا إرده أيال قسمي يطرق ملائكتي كسودك معنى أدونك لما إسبدله يقرحها كل عين هذا هدي وحير مال بركان أو كدعه وهذا رتن سيد الله كلا عرّ يدبات هذا
marka samadan markay dildilaacdo oo dhulkii oo wareegdo oo jibaasha ay kacad xageed istaagaado waxa weey waa howl